maanta si mug iyo miisaan uga qayb qaadanay ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa ee hogaaminaya maayarka caasimadda Hargeysa runtii waxaan soo kiciyay dareen wadaniyadeed iyo ku macalinimo anagu macallimiintii aanu qaranka nahay runtii marka horeba ardayda waxaanu ku waaninaa nadaafadda in la ilaaliyo oo fayadhowrka laga shaqeeyo oo macallinimadana ka mid tahayba arrintan markaa nimanka la wado hawsheeda lagu jiro waa aad iyo aad u qiimo badan waxaanu maayarka ku garab taaganahay oo aan kula shaqeynayna aan ku dhiirigelinayna hawshaas inay hawl qiimo badan tahay oo waxa weeye diinteenuna markaa ay nafartay nadaafadda inaynu ilaano aan kor u qaadno dan markaa ururkii macallimiinta nahay faraxsanahay inaan hawshan ka qayb qaadano dadweynaha Hargeysa ku qaadanaha arrinta waddaniyada maayarka ugu dhiirigeliyo waxaan loo kala harin arrintani waa arrin qiimo badan aynu markaa barbarkay ka baxda waa bakayla qaleen iyo inaanu kala harin baanu leenahay arrintaana maayarka iyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa waana horumar weyn oo la taaban karo oo runtii intii Soomaaliland ay jirtayba ayna walaalayaasha noocan oo kala shayguna wuxuu qiimo leeyahay marka la joogteeyo arrintaas markaa waxay nooga muuqato joogteyn rasmi ah oo aan kala go' lahayn haddaanu nahay ururkii macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland macallimiintana waxaan ku boorinaynaa in ololo kasta oo noocana oo la qaadayo inagu aynu hormuud ka noqono oo aynu qayb muhiim ah ka qaadano degmo kasta iyo gobol walba gaar ahaan caasimadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin TV-ga qarankana waan mahadnaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo magacaygu yahay Nuur Cabdiraxmaan Cali ururka macallimiinta Soolta waxaan bogaadinayaa nadaafadan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo dadweynuhu ay ka qayb qaadanayaan sida habboon ee looga qayb qaatay sidaas leeg baan anaguna macallimiin ahaan uga qayb qaadanayna waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka dhammaan bulshooyinka caasimadda Hargeysa inay sida ugu habboon iyaguna uga qayb qaataan maadaama uu caafimaad ku xidhan yahay xashiishka nadaafadu waa qaali marka waxaan leenahay anaguna insha Allah tacaala waa in la dadaalka la kordhiyaa la joogteeyaa aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa maayarka iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigoo magacaygu yahay Cabdullaahi Ibraahim Maxamed ahna xogayaha guud ee ururka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland Soolta waxaan maanta ka qayb qaadanaynaa ololaha nadaafadda caasimadda Hargeysa gaar ahaan wadada halbowlaha iyo suuqa Hargeysa agagaarkeeda waxaan aad iyo aad halkan ugu hambaleynayaa dhammaan goloweynaha deegaanka goloweynaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo hogaaminaya maayarka deegaanka iyo xogayaha guud ee dowladda hoose runtii ololahan aan wadnaa waa mid aan ku nadiifinayno caasimaddeena xashiishka waxaan ogsoonahay in xashiishku intuu inoo jiro cudurku inoo jiro ka macallimiin ahaan maadaama anagu nahay macallimiintii qarankaan nahay waxaanu ku sidoo kale ardayda waxaan iyagana ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan sidii loo nadiifin lahaa looga qayb geli lahaa degmo kasta iyo maxaa dhammaan xarumaha waxaan aad mar labaad ugu dhiirigelin bulshada Soomaaliland bulshada caasimaddu inay ka qayb qaadato barnaamijka nadiifinta caasimadda mar labaad iyo masaxad nool macallimiinta deegaanka barnaamijkan waa iska wax u qabso waayo qofku wuxuu barayaa inuu jeclaado waddankiisa qofku wuxuu ku dhiido ayay lexjecel kaga jirtaa markaa tan waxay soo celinaysaa in wacyiga iyo garaadka iyo lahaanshaha ay dadku leeyihiin waddankooda ay kor u kacdo waanu ku hambalyeynaa golaha deegaanka mar labaad iyo masaxaadba hawshaa weyn ay qabtaan si wanaagsan ay u wadaan maanta meelihii aanu markaan xashiishka ururaynay goobaha qaar wax xashiisha waanu ka weynayaa taas waxay muujinaysaa in aad looga shaqeeyo bilixii aad iyo aad